السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيك الصومالية كحرم برتيد يوتيوب ميلا جوكتان با عبر الليل حافمات عبادة صوبان اي رجينية كسولو هذا مركلة اي برنامج كله برنامج كان عاوة رنتي وحان اوغا هادليا ارين aniga qusaysa oo runtii cirdigayga iyo sharaftayda iyo karaamadayda lagu xadgudbay oo been abuur la igu sameeyay oo walaalo badan oo Soomaaliyeed oo Ilaahay dartiisa isu jeclayn Ilaahay dartiisa u wada shaqeynay Ilaahay dartiisa qof Soomaaliyeed oo qulubtiisu fiicanto Soomaali horumarkeed ku shaqeynaya ii haystay qalad la iga fahamsiiyay ayaan rabaa inaan ka jawaabo arintaas waa arinta been abuurka uu sameeyay ninka la yiraahdo Daahir Calasow muuqaalkaas oo aad runtii baraha bulshada loogu baahiyay sawirkayga cod aan lahayn inta la kor saaray la yiri bal nala daawada Abuukar Cawaalo caynay beelaawi runtii waa cod laga yaxyaxo ahaa wax laga naxo ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala igama dhigo qof saas u hadla bulsho dhan oo Soomaaliyeed oo karaamaysan oo sheekh leh oo shariif leh oo hooyo leh oo aabba leh oo walaal leh oo abaayo leh inaan sidaas u caay Ilaahay subhanahu wa ta'ala igama dhigo codkaas bari baan ka ahay Ilaahay waa igu og gurigayga baan joogaa weysa ii dhowran maghrib waxa iga haray 40 minutes Ilaahay baa igu og Ilaahay hortiis baan idin cadeynaya codkaas anigu shaqo kuma leh waxaad aragteen waa sawirkayga laakiin codka ka dambeeyo hadlaya anigu malihi nin saas u caaytamo oo beele islaameed saa u caayana ma ahi qof sidaas cuqdad u qabana ma ahi Soomaali waa wada walaalahay meel walbaan tagaa meel walbaan ka shaqeeya ficilkayga iyo hawsha aan wado iyo inta aad iga taqaanaan ayaana ka marqaati ah inaan intaasoo abaalmaridood oo Somali International Awards iyo Hiiraan Person of the Year iyo intaasoo abaalmarid iyo shahaado sharaf Soomaali meel walba joogto in lagu abaalmariyay ayaa ka marqaati kacaysa qof noocaas u hadla iyo qof mentality-gaas leh inaanan ahayn marka beesha hawiye waxaan ka codsanayaa inay arintaas sidaas u ogaadaan waxaan waliba aad iyo aad muuqaalkan runtii aan aad u jecelahay inuu gaaro dhalinyarada aan kula kulmay Muqdisho aan kula kulmay Galmudug aan kula kulmay meel walba oo Soomaali degto oo beeshaas ka soo jeeda oo soo dhaweeyay oo kor ii qaatay oo u riyaaqay hawsha aan ummadda u hayo Somali icon Somali role model ii arkay oo codkaas markay maqaleen ka niyad jabay adeerayaal waxaan leeyahay aniga ma aha waxaan ahay ninkii aad aragteen waxaan ahay ninkii danta ummadeed ka shaqeynayay uu qof sidaas u cuqdadaysan oo bulsho dhan sidaas u caay Allah subhanahu wa ta'ala igama dhigo marka waxaan aad u rajaynayaa in muuqaalkan aad isgaarsiisaan Ilaahay igama dhigo Daahir Calasow baa sameeyay qofka hadii la weydiinayo reference academic marka research ama wax la cadeynayo war waxaan cadeynteedii meeda where is the evidence hadii la dhaho waxa la rabaa markaas proof of cadeyn ah diinteena xataa xadiis nabigeena laga soo wariyay yaa soo wariyay xadiiskan ma saxiix ama daciif waa la kuweeshin garaya waxaan idin ka codsanayaa inaad isweydiisaan qofka arintan soo wariyay oo yiri war bal Abuukar Cawaalo sidan leh qofka uu yahay dib isu weydiiyay waa Daahir Calasow meeqa qof oo islaam ku xadgudbi meeqa qof oo mas'uul ku xadgudbi meeqa qof oo culumada ku xadgudbi meeqa hooyo iyo qoys ku xadgudbi oo cirdigooda iyo sharaftooda ku nabiibtay oo been ka sameeyay iyo codad been ah iyo dad actors ah iyo balaayo wax u jisha Daahir waxa leeyahay Daahirow cimri baad joogtaa labada garbood malaa'ig baa saaran qorayso waxaad sameynaysid ku been abuurashada iyo dadkaas islaamka oo dar Ilaahay isu jecel oo aad kala dilaysid walaalo iska daa maanta anigu waan kula joogaa waan kula hadlayaa fariintan oo ku soo gaaraysa laakiin waxa jira dad Allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariiste naga hooseeyo oo aan cafis weydiisan karin oo aadan ku oran karin walaalo waa ku gafay cirdigaaga iyo sharaftaada ku gafay oo kugu been abuurtay walaalo iga raal oo cafi albaabkaas waa ka xirmay dadkaas waa naga hooseeyaan
injineer yariisow baa ka mid ah. waad ogeyd waxaad been ku abuuratay, waa ogeyd waxaad ku samaysay. maanta albaabkaas waa kakaa xiraya. ilaahay subxaanahu watacaala janna firdaws alaclaa ha geeyo. nin akhyaar ah oo sharaf leh oo afgaaban oon isku xaafad suuqa siigaale beer jabuuti kusoo wada kornay buu ahaa. xanuun bay ahayd xogadeedii yarood gabdha kasoo duubta been ah. maanta albaabkaas waa kaa xirnay. haddaad damiir iyo dignity iyo iimaan in yar la kugu jirtana habeenkii markaad seexatid waa inay ku dhibtaa wax aad qofkaas oo kale ku samaysay. iyo kumanaan qof, culimo, aqoon-yahan, siyaasi, mas-uul. all your life ask yourself, maxaad achieve garaysay noloshaada oo aada gaartay oo aan dulmi iyo ku been abuurasho iyo ceebayn. walaalow isdaba qabo, walaalow isdaba qabo. injineer yariiso waa dhintay, allah u naxariisto. albaabkaas cafiskuna waa kaa xiran, laakiin anigu waa ku hortaagana. albaabkayguna waa kuu furan yahay. waxaan keliya un kugu cafinayaa maalinka intaad social mediada aada soo fariisatid haddaada qaladkaasi waa iga dhacay, ninkaasna asaga ma aha, beentaasna anaa sameeyey. laakiin realityga deep down markaan kuu aqaano, inta aan kaa aqaano, hanuunka ilaahay lagama quusto. kaa fili maayo. allah subxaanahu watacaala qulubtaada ha qooyo. daahirow dib isugu naqaan ku leeyahay. walaalaha kaleo soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meelaad joogtaanba inaad muuqaalkan isgaarsiisaan. soomaalida waxay dhahdaa been fakata run ma gaarto, laakiin youtube baanba u furtaba inaan beentaas ka daba tage muuqaalkan iga gaarsiiyey cid walba soomaaliya oo fariintaasi gaartay. aad baad u mahadsantihiin. allaha barakeeyo ummadeena, allaha barakeeyo dalkeena. soomaaliya ha noolaata. ilaahay subxaana watacaala dembiyadana hana dhaafo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.